بسم الله الرحمن الرحيم وأستاذ الرحمن معلم محمد ورسمه oo nii waday barashada maadada maamulka bulshada public administration insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa haddii Ilaahay idmo chapter 2 waxaan chapterkan ciwaankiisu noqonayaa the political and cultural environment public policy and administration insha Allah marka intaan u guda galno cashirka ka hor waxaan soo xasuusin doonaa oo dib ugu laabanayna cashirkii hore waxaan uga soo hadalnay chapter 1kii history of public administration uga soo hadalnay waxaan ku soo sheegnay taariikhda maadada public administration inuu bilaabay nin loo yaqaano Woodrow Wilson 1887 in America hab lagu baranayo public administration sidoo kale waxaan soo sheegnay xilligii hore public administration waxay ku xadnaa jirtay oo kaliya oo isticmaali jiray laanta fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyay loo yaqaan executive branch sidoo kale waxaan ku soo hadalnay definitionka maadada public administration annagoo soo qaadanay qoraayaal kala duwan sida Aristotle, Woodrow Wilson haddaan hal definition ka soo qaadano waxaan ku sheegnay public administration inay tahay maamul siyaasadeed kaasoo bulshada u isticmaalaysa sidii isku horumari lahayd sidoo kale waxaan soo sheegnay waxay ku kala duwan yihiin shirkadaha ama hay'adaha dowladda iyo bulshada u shaqeeya iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaan soo sheegnay hay'adaha bulshada u shaqeeya hadafkoodu inuu yahay sidii bulshada ugu adeegi lahaayeen halka kuwa gaarka loo leeyahay hadafkoodu uu yahay sidii ku heli lahaayeen faa'iido waxaan kaloo ka soo hadalnay chapterkii hore chapter 1 muhiimadda uu leeyahay public administration muhiimadda uu leeyahay waxaa ka mid ahaa inaad ku baranayso mabaadi'da dowladdu ay isticmaasho sidoo kale inaad ku baranayso local government dowladda hoose sidoo kale inaad ku baranayso ay muhiim u tahay inaad fahamto xisbiyada siyaasadeed intaa haddaan chapterkii hore uga soo hadalnay insha Allah maanta waxaa noo bilaaban doona chapter 2 waxaan uga hadli doonaa insha Allah haddii Ilaahay idmo chapterku markuu noo dhamaado kadib ardaygu wuxuu baran doonaa chapterkan inuu qeexo termiskan ama erayadan sida policy making maxaa la yiraahdaa cultural environment maxaa la yiraahdaa policyna maxaa la yiraahdaa sidoo kale ardaygu wuxuu baran doonaa inuu sharaxo 5 steps of policy making process 5 tallaabo ee uu maro markii siyaasad la sameynayo ay marayso oo la rabo inay dowladdu qaado sidoo kale ardaygu wuxuu baran doonaa haddii Ilaahay idmo inuu sheego doorka ay leeyihiin executive branch laanta fulinta ee dowladda iyo doorka laanta sharci dejinta oo loo yaqaan legislative branch sidoo kale cashirkan waxaan ku baran doonaa chapter 2 in aan sharaxno kana doodno saddexda xirfadood ee loo baahan yahay inuu yeesho leaderska hogaamiyaasha raba dalka inay hogaamiyaan ama ha noqdo mid shirkad private hogaamiya ama ha noqdo mid dowlad hogaamiya sidoo kaleeto waxaan ku baran doonaa astaamaha lagu yaqaano good leader madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha fiican astaamaha lagu yaqaan iyo astaamaha lagu yaqaano midka xun oo
hogaamiyaha aan fiicnayn. sidoo kale waxaan baran doonaa maxaa la yiraahdaa foreign policy, siyaasadda dibadda maxaa la yiraahdaa. intaa ayaan cashirka uga hadli doonaa haddii Ilaahay idmo. haddaan ku hormarno maxaa la yiraahdaa public policy making, sameynta siyaasadda bulshada. maxaa la yiraahdaa waa shaqo ay qabato dowladdu si ay ugu fuliso go'aanadeeda. policy making process waxaa la yiraahdaa waa shaqo dowladdu ay qabato una adeegsato go'aanadeeda, taasoo loogu talagalay in lagu xalliyo problem laguna horumariyo quality of life for its citizens, tayada nolosha ee muwaadiniinta. policy making process, public policy making waa shaqo ay qabato dowladda una adeegsato go'aanadeeda si loogu xalliyo dhibaato ama loogu horumariyo tayada nolosha muwaadiniinta. sidoo kale cultural environment, dhaqanka bay'ada maxaa la yiraahdaa waa waxyaabaha ay dadku aaminsan yihiin, beliefska, caadooyinka iyo habdhaqanka dabeecadaha that exists within the population, taasoo ka jirta bulshada dhexdeeda. waxyaabaha bulshada ay caqiida ahaan u aaminsan tahay iyo caadooyin ayaa waxaa loo yaqaanaa cultural environment. sidoo kale political waxaa la yiraahdaa xiriirka dowladda ama public affairs of country, arrimaha bulshada ee dalka ayaa waxaa loo yaqaanaa political. qodobka xiga policy maxaa la yiraahdaa policy waa fikrado ama qorsheyn ama qorshayaal loogu talagalay in lagu fuliyo particular situation, xaalado gaar ah, kaasoo ay isku raaceen ama ay ku heshiiyeen madaxda iyo guruubyada madaxda u ah kabiniyaasha ganacsiga, dowladda iyo political parties, xisbiyada siyaasadeed. policy waxaa la yiraahdaa qorshe gaar ah oo la rabo in arrin lagu fuliyo, kaasoo ay ku heshiiyaan dowladda iyo kooxo daneeya. sidoo kale heshiiskaasna waxaa ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee markaa dalka ka jira. heshiiskaas iyo fikradahaas ay ku heshiiyeen ayaa waxaa loo yaqaan policy. haddaan mar kale ku celiyo policy waa aragti ama fikrado, sidoo kale waa qorshe la rabo oo loogu talagalay in lagu fuliyo particular situation, xaalado qaasa ama gaar ah, kaasay ku heshiiyeen kooxo iyo madaxda dowladda iyo xisbiyada siyaasadeed. qodobka xiga wuxuu noqonayaa economic policy maxaa la yiraahdaa siyaasadda dhaqaalaha. waxaa loo isticmaalaa to describe in lagu qeexo the action of government,
shaqooyinka dowladda kaasoo ku lug leh ama saameyn ku leh dhaqaalaha sida canshuurta, miisaaniyadda dalka. Economic policy waxaa la yidhahdaa saameynta uu dhaqaaluhu ku leeyahay dowladda iyo siday dowladdu u horumari lahayd dhaqaalaha dalka ayaa waxaa loo yaqaanaa economic policy. qodobka xiga objective-ka xiga wuxuu noo noqonayaa policy making process. hanaanka oo maro markii la rabo in la sameeyo siyaasad. waxay mari doontaa dowladda 5 tallaabo. tusaale policy making process haddaan usoo qaadano, dowladda ayaa waxay damacday ama ay go'aansatay in ay fuliso mashruuc ama ay bulshada degan markaa magaalada ay ka bixiso dhismooyinka danta guud si dowladda ugu shaqayso. markaa dowladda waxay u baahan tahay 5 tallaabo inay marto intaysan fulin ka hor. 5 tallaabo oo u fududeynaysa in ay dowladdu ku guuleysato markaa hadafkii laga lahaa arrinta mashruucaas. waxaa ugu horeeya 5 tallaabo agenda building. intaan la sameyn ka hor policy-ga waa in la caddeeyaa identification a problem must exist. problemka jira iyo baahida jirta waa in la caddeeyaa oo la sheegaa. inta aan la fulin ka hor waxaa la sameynaa agenda building. waxyaabihii la rabay in la qabto ayaa laga hadlayaa. waxaa la isweydiinayaa waa maxay baahiyaha keentay in arrintan la sameeyo, sidee loo sameynayaa, goormahaase la sameynayaa. waxaa kaloo laga fiirinayaa cawaaqibka ka imaan kara positive iyo negative labadaba. waxaa kaloo la fiirinayaa saameynay ku yeelanaysaa ayaysan ku yeelanaynin. qodobkaa markii la dejiyo waxaa haddana ku xigo inay dowladda sameyso policy formulation. waa in la qorsheeyaa. macnaheedu waxay tahay waa in dowladdu la imaataa approach to solve problem, hab lagu xalinayo dhibaatada. congress dowladdu waa inay qabataa kulankaas oo ay kasoo qaybgelayaan executive branch, laanta fulinta ee dowladda, maxkamadaha, kooxaha daneeyayaasha ah waa inay iyaguna ku lug yeeshaan. intaa markay ka qayb galaan waxaa la qorsheynayaa ajandihii hore looga soo hadlay, sidii loo mari lahaa iyo habkii loo mari lahaa. qodobka xiga oo la geliya waxay tahay policy legitimacy. siyaasad sharciga waa inay tahay policy-ga la rabo markaas ama qorshaha la rabo ama arrinta la rabo markaa in la fuliyo. micnaheedu waxay tahay policy legitimacy in la tixgeliyo oo dowladda ay tixgeliso bulshada. sidoo kale in dowladdu ay ilaaliso
ama ay u marto legal si sharciya qorshaha ay rabto inay fuliso waa inuu ahaadaa mid sharciya oo ah awoodda markaa loo adeegsanayna ay noqoto authoritative awood sharciya aysan ahayn awood markaa lagu tagrifalayo ama aan sharciga waafaqsaneyn dalka u degsan. Sidoo kale dowladdu waa inay sheegtaa sharciga ay ku saleynayso policygaas ay rabto inay fuliso dowladdu, waana inay ku saleysaa willingness rabitaanka muwaadiniinteeda. Policy legitimate oo ah qodobka saddexaad ee markii la rabo in policy dowladdu ay rabto inay fuliso la maraya wuxuu yahay in ay dowladdu ay u marto policygaas si sharciya, waana inay ku saleysaa oo ka qaybgelisaa rabitaanka bulshada si hadhow bulshadii aysan uga hor imaan dowladda. Tusaale ahaan dowladdu waxay rabtaa inay dad guryo ka saarto hanti guud iyo hantida dadweynaha u dhexeeya iyo dhismayaasha dowladda inay ka saartay rabtaa dad degan. Dowladdu marka waa inay qorsheysaa dadkaas hadhow meeshii la dejin lahaa waa inay u diyaarisaa, li'annahu dadkii haddaan meel loo diyaarin la dejiyo hadhow waxay keenayaan rabshado iyo banaanbax iyo dhibaatooyin badan ayaa ka imaanaya. Waxaa kaloo ka imaanaya tacaddi bulshadii markaa loo geystay. Marka dowladda ayadaa bulshada u shaqeysa waxaa looga baahan yahay inay dadkaas meel u diyaariso mar walbana ay policygaas ay ku saleyso sharci iyo rabitaanka bulshada. Qodobkaas saddexaad ee loo marayo markii la rabo in siyaasad la fuliyo waa policy implementation. Waa la hirgelinayaa oo waxaa la bilaabayaa shaqadii iyo sidii loo fulin lahaa, li'annahu waxaa lasoo sameeyey qodobka laga hadlayo iyo problemka jira oo lasoo sheegay iyo baahiyaha loogu baahan yahay. Sidoo kale waa lasoo qorsheeyey, sidoo kale sharci ayaa loo soo maray, markaa kadib ayaa la fulinayaa. Wejigan waxay tahay in policygii ama siyaasaddii ama go-aankii la rabay in la fuliyo loo bedelo action, ficil in loo bedelo. Markii la fuliyo kadib waxaa la fiirinayaa qodobka shanaad oo ah policy evaluation. Siyaasaddii la fuliyey ayaa qiimeyn lagu sameynaya dib u eegis. Fuliyayaasha ama sameeyaasha markaa ku shaqada leh fulinta waxay go'aansanayaan oo qiimeynayaan in policygii la hirgeliyey oo noqday effective sidii la rabay inuu noqday, wixii la rabay inay ka soo baxeen, hadafkii laga lahaana in la gaaray. Policy evaluation marka macnaheedu wuxuu yahay markii lasoo fuliyo siyaasaddii, tusaale ahaan dadkii laga bixiyey guryaha iyo dhismayaasha dowladda markii meel loo dhiso oo la dejiyey waxaa lasoo qiimeynayaa dadkii meesha laga raray xaalkoodu siduu yahay. Sidoo kale waxay qiimeynayaan oo qiimeyn lagu sameynayaa meeshaan hantida guud ah ee dadka laga saaray ama mashruucan la fuliyey hooshii la rabay iyo natiijadii la rabay ma laga gaaray. Marka shantaa tilaabo waxa waaye markay rabto dowladdu inay go'aan qaadato ay rabto inay policy ama mashruuc ay fuliso waa inay shantaas ay fulisaa ayna u martaa. Qodobkeena xiga ayaan gelin doonaa. Qodobkeena xiga wuxuu noqonayaa objective-ka xiga doorka iyo shaqooyinka ay qabtaan executive branch laanta fulinta ee dowladda sida madaxweynaha oo ugu horeeyo.
laantan oo ah laanta ugu sarreysa ee dowladda ee madaxweynuhu ugu horeeyo, doorka iyo shaqooyinka ay qabtaan waxaa ugu horeeya oo looga baahan yahay inay qabtaan hirgelinta sharciga enforcement of law, hirgelinta sharciga. Tani waa shaqada aas-aasiga u ah ama aas-aaska u ah laanta fulinta oo looga baahan yahay inay fuliso ama ay hirgeliso sharciga, sidoo kale inay joogteyso order in state amarada dowladda. Qodobka ugu horeeya waxaan ku sheegnay inay tahay oo looga baahan yahay laanta fulinta ee dowladda inay sharciga hirgeliyaan. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa doorka ay leeyihiin iyo shaqooyinka ay qabtaan laanta fulinta appointment to make functions, magacaabista ayay ku shaqo leeyihiin oo ay qabtaan. Dhammaan magacaabista waxaa sameeya madaxa fulinta, wuxuu magacaabaa madaxa cadaaladda oo ah gudoomiyaha sare, gudoomiyaha maxkamadda sare, sidoo kale kuwa ka hooseeya ama judges of high courts iyo madaxda sare ee madaxda maxkamadda sare ama dadka xukunka fulinaya ee maxkamadda sare. Doorka labaad iyo shaqooyinka labaad ay qabtaan laanta fulinta waxaa waaye qaybta saddexaad, waxay sameeyaan heshiisyada. Heshiis kasta waxaa ansixiya oo saxiixa member of executive, xubin ka mid ah laanta fulinta, laakiin heshiisyada ugu badan waxaa ansixiya oo ratification ku sameeya laanta sharci dejinta oo ah baarlamaanka. Doorka afraad ee looga baahan yahay laanta fulinta inay qabato waxa waaye defense, war and peace functions, difaaca iyo horumarinta nabadda. Waa shaqada ugu muhiimsan ee dowladdu ay qabato, in ay dowladdu difaacdo, ilaaliso oo dhowrto the unity and integrity of the country, midnimada iyo sharafta dalka. Sidoo kale protect inay ilaaliso haddii uu dhaco external aggression, dagaal gardarro ah oo dibadda uga yimaada duulaan, waa in dowladdu ay ka hortagtaa oo ilaaliso. Marka haddaan dib ugu laabano way noo sii socon doontaa doorka executive branch laanta fulinta madaxweynuhu ugu horeeyo. Shaqooyinka ay qabtaan waxaa ugu horeeyaan dhahnay fulinta sharciga, magacaabista mas-uuliyiinta sida mas-uuliyiinta maxkamadda sare, sidoo kale heshiisyada caalamiga ah waxaa gala laanta fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeya, kadibna waxay usoo gudbiyaan laanta sharci dejinta, baarlamaankii ayaa ansixiya. Sidoo kale difaaca iyo nabadda ayaa ah doorkooda. Waxaa kaloo door muhiima ka ciyaaraan midnimada iyo sharafta dalka. Weli waxaa noo socda doorka laanta fulinta iyo shaqooyinka ay qabtaan. Waxay sameeyaan ay ku shaqo leeyihiin foreign policy, siyaasadda dibadda. Waxay qabtaan xiriirka caalamiga ah ama foreign relations. Waxay xoogga saaraan xiriirka arrimaha dibadda.
xilligan la joogo waxaa kordhaya waxaa loo yaqaano global interdependency, wada shaqayn caalami ah ayuu adduunku u sii socdaa. sidoo kale waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan ee dowladdu ay u qorshayso ama ay qorshayso siyaasadda dibadda. qaybta ugu muhiimsan ee xoogga la saaro waxay tahay siyaasadda dibadda iyo iskaashiga caalamiga. marka qodobkan wuxuu yahay doorka iyo shaqooyinka ay qabtaan laanta fulinta inay tahay arrimaha ku saabsan siyaasadda dibadda. sidoo kale waxay sameeyaan policy making, siyaasaddana waxaa sameeya laanta fulinta. waxay diyaariyaan qorshayaal gaagaaban iyo kuwo dhaadheer and implemented these wayna hirgeliyaan. doorka ay ka ciyaaraan iyo shaqooyinka ay qabtaan waxaa kamid ah inay siyaasadda sameeyaan iyo sidoo kaleeto doorkooda waxa waaye administrative and financial functions, maamulka iyo shaqooyinka maaliyadda. waxay mas-uul ka yihiin xoojinta iyo ilaalinta financial activities, howlaha maaliyadeed. waxaana loo sameynayaa si loo horumariyo dhaqaalaha dalka. doorka ay ka ciyaaraan iyo shaqada ay qabtaan laanta fulinta waxay tahay maamulidda iyo ilaalinta maaliyadda dalka si loo horumariyo dhaqaalaha. and they use these tools, markay rabaan inay ilaaliyaan maaliyadda dalka waxay isticmaalaan toolskan. waxaa ugu horeeya prepare annual national budget, waxay diyaariyaan miisaaniyad sanadeedka qaranka si ay u ogaadaan sanadkii hore miisaaniyaddii dowladda ku baxday iyo miisaaniyaddii soo gashay iyo sanadkan farqiga u dhexeeya si ay u ogaadaan ayay annual national budget sameeyaan. sidoo kale waxay isticmaalaan oo sameeyaan manage the country's wealth, waxay maamulaan hantida dalka. sidoo kale waxay xoogga saaraan import and export activity, howlaha dakhliga dalka soo gelaya iyo midka ay dhoofinayso dowladda. sidoo kale waxay horumarisaa heshiisyada iyo wadaxaajoodka ay la leedahay dalalka kale ama gorgortanka. sidoo kaleeto waxay xoogga saartaa the price of products within the country, wax soo saarka dalka iyo qiimaha badeecooyinka ay xoogga saartaa si loo ilaaliyo oo loo maamulo maaliyadda dalka. waxaan geli doonaa objectivekeena xiga. objectivekeena xiga wuxuu noqonayaa the role of legislative branch, doorka ay qaataan ama shaqooyinka ay qabtaan laanta sharci dejinta oo ah baarlamaankii. doorka intaanan gudagelin ka hor maxaa la yidhahdaa law, sharci maxaa la yidhahdaa aan fahano. sharci waxaa la yidhahdaa waa nidaam xeerar kaasoo leeyahay particular country or community. waa xeer iyo nidaam u degsan dal qaasa
ama bulsho, kaasoo la aqoonsaday ama ay u aqoonsadeen in xoogga lagu saaro ama lagu ilaaliyo action of its members, shaqooyinka ay qabanayaan xubnahooda markaa mas-uuliyadda u haya, kaasoo sababi kara in lagu sameeyo imposition of penalties, ganaax inay ku sameeyaan. sharci waxaa la yidhaahdaa ama law waa nidaam iyo xeerar u degsan dal gooniya ama bulsho si ay ugu ilaaliyaan ama ay xoogga ugu saaraan shaqooyinka ay qabanayaan xubno ayaga ka tirsan, waxayna keeni kartaa haddii sharcigaa la jebiyo ganaax in lagu soo rogo xubnaha markaa u haya xukunka ama maamulka. marka law sidaasaa la yidhaahdaa. waxaan gelaynaa shaqooyinka ay qabtaan laanta sharci dejinta ee legislative branch. waxay sameeyaan sharciga, sidoo kale waxay soo gudbiyaan sharciyada, sidoo kale waxay ilaaliyaan dastuurka dalka, sidoo kale doorkooda waxaa ka mid ah approving treaties, waxay ansixiyaan heshiisyada caalamiga ah, sidoo kale doorkooda waxaa ka mid ah impeaches the official if they cannot perform their duties, waxay xilka ka xayuubiyaan madaxda hadday gudan waayaan waajibaadkooda. doorka marka baarlamaanka ama laanta sharci dejinta waxay tahay inay sameeyaan sharciyada, inay ilaaliyaan dastuurka, inay ansixiyaan heshiisyada caalamiga ah, sidoo kale inay xilka ka qaadaan oo kalsoonida ay kala laabtaan madaxda markaa dalka hogaaminaysa hadday gudan waayaan waajibaadkooda. halkaa haddaan uga gudubno doorka ay leeyihiin ama ay qaataan laanta sharci dejinta, waxaan geli doonaa objectivekeena xiga. objectivekeena xiga wuxuu noqonayaa types of public leaders skills, xirfadaha looga baahan yahay hogaamiyaasha raba inay dalka hogaamiyaan. waa 3 xirfadood waa inay yeeshaan. hadday 3 xirfadood laga waayo, caqabad weyn ayay ku noqonaysaa inay dalka hogaamiyaan. xirfadda ugu horeysa ama skillska ugu horeeya oo laga rabo waxay tahay conceptual skills, waa inay yeeshaan xirfad fikradeed. conceptual skills macnaheedu waxay tahay awoodda ay ugu fekerayaan si hal abuurnimo ah, una fahmayaan xaaladaha adag markay yimaadaan iyo fikrado markaa kasoo horjeeda. conceptual skills looga baahan yahay hogaamiyaha waxawaaye inuu leeyahay hal abuur, sidoo kaleetana haddii xaalad adag ay timaado inuu xallin karo. xirfadda skillska labaad ee looga baahan yahay waxay tahay technical skills, oo ah xirfadaha dhanka farsamada ah. waa awoodaha iyo waa inuu leeyahay awoodo iyo aqoon oo ku guto specific task, shaqada cayiman ee markaa loo idmaday. aqoontii iyo awooddii oo ku fulin lahaa waa inuu yeeshaa. sidoo kale waa inuu wax ka yaqaanaa mechanicalska, tiknolojiyadda iyo mathematics, xisaabta. skillska 3aad ee laga rabo hogaamiyaha waxay tahay human skills, skillska ku saabsan dhanka dadka ama bini'aadanka. waa awoodda oo ula shaqeynayo dadka si wanaagsan, hadday noqdaan shaqsiyado ama kooxo intaba. waa inuu xirfad u leeyahay inuu la shaqeyn karo dadka,
hogaamiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay effective communication, xiriir wanaagsan ama wax ku ool ah. Wuxuu sameeyaa motivation, dhiirigelin, hogaamin iyo equality for his under people. Sidoo kaleeto wuxuu sinaan iyo cadaalad u sameeyaa dadka markaa uu xukumo oo asaga hoos yimaada. Marka saddexdan xirfadeed ee looga baahan yahay hogaamiyaha raba markaa dalka inuu hogaamiyo ama maamulaha raba inuu maamulo company gaar loo leeyahay, waxa waaye saddexdan: in uu leeyahay xirfad ah hal abuurnimo, inuu xallin karo hadday dhibaato timaado, inuu samato bixin karo dalka haddii wax dhibaato soo wajahdo, inuu bulshada qanci karo, sidoo kaleeto inuu wax ka yaqaano technicalkii waxyaabihii farsamadii oo markaa uu ku fushan lahaa hadafka oo rabo ama shaqada oo rabo inuu qabto oo loo xirsaarsay, inuu wax ka yaqaanaa tiknolojiyadii iyo xisaabaadkii, sidoo kale inuu yaqaano qaabka dadka loola shaqeeyo, loo qanciyo, loo dhiirigeliyo. Objective-kan xiga ayaan geli doonaa insha Allah. Objective-kan xiga wuxuu noqonayaa astaamaha lagu yaqaano hogaamiyaha wanaagsan ama madaxweynaha wanaagsan. Hogaamiyaha wanaagsan astaamaha lagu yaqaano waxa ugu horeeya oo looga baahan yahay oo ama lagu gartaa inuu fiican yahay, inuu leeyahay honesty and mercy for his citizens, inuu daacad yahay una naxariisto bulshadiisa. Hogaamiyaha wanaagsan ama madaxweynaha wanaagsan astaamaha lagu yaqaano waxa ugu horeeya inuu yahay mid daacad ah, una naxariista bulshada oo maamulo, sidoo kaleeto inuu leeyahay aragti fog, strong vision for country's future. Waa inuu leeyahay aragti fog oo ku saabsan mustaqbalka dalka. Waa inuu madaxweynuhu leeyahay aragti fog taasoo hiigsanayo oo rabo in uu dalku gaaro. Sidoo kale madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan astaamaha lagu garto ee saddexaad waxay tahay madax bannaani. Madaxweynaha wanaagsan waa mid madax bannaan. Madaxweynaha wanaagsani ma ahan sida boonbalaha oo kale oo wax walba ka jawaabayn ama wixii rabo laga samaysanayo, balse wuxuu yaqaanaa oo garanayaa how to make right decisions, sida loo sameeyo go'aan saxa ama sida loo qaado go'aan saxa si loo qaato ayuu yaqaanaa. Sidoo kale astaanta lagu yaqaano madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan waxay tahay inuu leeyahay accountability, isla xisaabtan. Madaxweynaha wanaagsani oo la xisaabtamaa dadka asaga ka hooseeya oo mas-uuliyadda u idmay. Sidoo kaleeto wuxuu isku aqoonsadaa madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan inuu yahay the father of the entire nation, inuu yahay aabbaha dhammaan qaranka ama dhammaan bulshada inuu yahay ayuu isku aqoonsadaa. Sidoo kaleeto wuxuu qartaa qaladaadkiisa iyo meelaha uu ku liitana wuu qartaa. Marka hogaamiyaha wanaagsan astaanta lagu yaqaano waxaa ka mid ah isla xisaabtan. Sidoo kale astaanta lagu yaqaano hogaamiyaha wanaagsan waxaa ka mid ah respect, xushmad. Hogaamiyaha wanaagsani wuxuu xushmeeyaa oo ilaaliyaa oosan ku xadgudbin constitution, dastuurka dalka u degsan ee lagu heshiiyey. Sidoo kale wuxuu aqbalaa sharciyada. Sidoo kaleeto wuxuu u hoggaansamaa go'aanada maxkamadda sare oo ma aha mid keliya talis ah oo go'aankii maxkamadda sare ka soo baxaa reer maraya. Sidoo kaleeto wuxuu dhegaystaa, xushmeeyaa, soo dhoweeyaa aragtida iyo talooyinka uga imaanaya bulshada. Sidoo kale hogaamiyaha wanaagsan astaanta lagu yaqaano waxaa ka mid ah cohesiveness.
midnimo. Madaxweynaha wanaagsani wuxuu sare u qaadaa midnimada dadka halkii oo u sababi lahaa inuu dadka qaybiyo oo qayb ka dhigo, markaana dadkii ay dagaalaan. Dagaal aan markaa wax macnaa aan lahayn inay dadka dagaalaan, aan waxaan macno lahayn dadku ay ku dagaalaan. Qodobkan waxay tahay madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan lagu yaqaanaa inuu dadka midnimadooda ka shaqeeyo, inuusan dadka u horseedin inuu kala qaybiyo, sida inuu qabyaaladii dadkii asaga ugu horeeyo, inuu qabyaaladii sameeyo, inuu dadkii maaragtay iska hor keeno bulshadii. Astaanta ugu dambeysa ee laga rabo hogaamiyaha wanaagsan inuu yeesho waxa waaye action and confidence, shaqo iyo kalsooni. Hogaamiyaha wanaagsan wuxuu qabtaa shaqo, sidoo kaleeto wuxuu go'aansadaa inuu xaqiijiyo great vision and dreams for the country. Aragtida fog ee la rabo in markaa la gaaro ayuu xaqiiqsadaa oo go'aansadaa, wuxuu ka saaraa sidii lagu gaari lahaa horumarinta dalka, midnimada bulshada. Sidoo kale madaxweynaha wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan astaanta laga rabo waxay tahay patient, dulqaad inuu yeesho, sidoo kaleeto inuu leeyahay adkaysi, persistence. Madaxweynuhu hadduusan dulqaad lahayn oo go'aankiisa markii pressure uu soo wajaho uusan xalli karin, uusan u dulqaadan karin bulshada, sidoo kaleeto caqabadaha uga imaanaya siyaasiyiinta kasoo horjeeda iyo xisbiyada siyaasadeed, go'aan uu iska qaadanayo ma ahan madaxweyne wanaagsan. Laakiin waxaa loo baahan yahay inuu yeesho dulqaad iyo fiiro gaar ah. Halka haddaan uga gudubno astaamaha lagu yaqaano hogaamiyaha wanaagsan, waxaan gelaynaa objective-ka xiga oo ah astaamaha lagu yaqaano sidoo kale hogaamiyaha aan fiicnayn, hogaamiyaha xun ama madaxweynaha aan fiicnayn. Astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah oo ugu horeeya ma lahan dhegeysi, wuxuu iska indha tiraa. Madaxweynaha aan wanaagsanayn aragtida iyo fikradaha uga imaanaya bannaanka wuxuu iska indha tirayaa soo jeedinta bulshada, sidoo kaleeto aqoon-yahaniinta, siyaasiyiinta waxay u soo jeediyaan oo wanaagsan wuu iska indha tirayaa madaxweynaha aan fiicnayn. Sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa madaxweynaha aan fiicnayn, astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah waa mid ku labalabeeya go'aanada. Hogaamiyaha aan wanaagsanayn ma qaato go'aan wax ku ool ah, wuxuu iska qaataa go'aan waxa ka imaanaya oosan fiirin, go'aan liita, go'aan markaa keenaya in bulshadii ay ka hor timaado. Sidoo kale wuxuu qaadanayaa go'aan fudud oo markaa uusan cidna kala tashan. Sidoo kaleeto hogaamiyaha aan wanaagsanayn astaanta lagu yaqaano waxaa ka mid ah refusing, wuxuu diidaa inuu qaato mas-uuliyaddiisa inuu qaato, oo wixii ka yimaada mas-uuliyaddiisa inuu qaato wuu diidaa, oo wuu iska indha tiraa oo ma qirto khaladaadkiisa iyo mas-uuliyad darrada uu ku sameeyo dalka iyo bulshada. Sidoo kale hogaamiyaha aan wanaagsanayn waxaa lagu yaqaanaa wuxuu shaqada u diraa dadka asaga ka hooseeya oo asaga maaragtay shaqada iyo mas-uuliyadda uga hooseeya oo asaga hoos yimaado shaqada u diraa, asagana ma qabto shaqada ee markaa wax kaloo isaga mashquula. Shaqadii loo idmaday iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay iyo dalkii lagu aaminay uma shaqeeyo ee dana gaara ayuu wataa. Shaqadii oo laga rabay inuu qabtana wuxuu ku wareejiyaa dadka asaga markaa hoos yimaada. Sidoo kale hogaamiyaha aan wanaagsanayn waxaa lagu yaqaanaa ma lahan aragti dheer, ma lahan ee wuxuu leeyahay aragti gaaban oo yar ayuu leeyahay. Kama fekerayo horumarka bulshada, kama fekerayo horumarka dalka, aragti gaaban ayuu leeyahay. Qiimeyn maayo waxa ka imaan kara mustaqbalka 2 sano soo socota, sida xaaladdu u socoto
sidoo kale hogaamiyaha aan wanaagsanayn waxaa lagu yaqaanaa ma lahan isla xisaabtan accountability. lama xisaabtamayo dadka uu xilka u dhiibtay, lama xisaabtamayo wixii ka hooseeyay asaga. dadkaas marka la rabay in lala xisaabtamo howlahooda iyo shaqadooda siday u socdaan, waxay sameynayaan musuqmaasuq iyo inay bulshadii ku tagrifalaan iyo mas-uuliyaddii loo idmaday, li'annahu ma lahan hogaamiye la xisaabtamaya. marka hogaamiyaha aan fiicnayn ama madaxweynaha aan fiicnayn waxaa lagu yaqaanaa ma lahan isla xisaabtan. sidoo kaleeto astaanta lagu yaqaano hogaamiyaha aan wanaagsanayn waxaa ka mid ah uma mahad celiyo tiimka ama dadka marka la shaqaynaya markay shaqo qabtaan, uma mahad celiyo ama waa iska aamusaa ama markaa eedeyn dhanka negatifeka oo keliya ayuu ka eegaa ee howlaha ay qabtaan kuma ammaano, kuma dhiirigeliyo. waana astaanta lagu yaqaano hogaamiyaha aan wanaagsanayn. waxaa looga baahan yahay hogaamiyaha wanaagsan inuu dhiirigeliyo dadka la shaqeeya, dadka ka hooseeya. qof kasta oo dalka wax u qabta waa inuu xusaa oo markaa ku shaqo leh hay-adda la'aanta fulinta. qodobka haddaan halkaas ugu gudubno waxaan gelaynaa objectivekeena xiga ee ugu dambeeya cashirka. wuxuu noqonayaa maxaa la yidhaahdaa siyaasadda dibadda. siyaasadda dibadda foreign policy waxaa loo yaqaanaa dhammaan hadafyada iyo hagidda shaqooyinka ama howlaha iyo xiriirka sovereign state in its interaction with other states. xiriirka foreign policy waxaa loo yaqaanaa siyaasadda dibadda waxaa loo yaqaanaa dhammaan hadafyada iyo hagidda howlaha iyo xiriirka ka dhexeeya sovereign state dowlad madax bannaan iyo qaabkii ay dowladuhu u wada shaqayn lahaayeen iyo qaabkii isku dhex geli lahaayeen iyo qaabkii ay dowlad kale xiriir fiican oo wanaagsan oo dhan kasta ay ula samaysan lahayd ayaa waxaa loo yaqaanaa foreign policy siyaasadda dibadda. insha allah cashirkeenna halkaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan geli doonaa haddii ilaahay idmo cashirkan noogu xiga chapter 3 maadada barashada cilmiga siyaasadda.